waa la soo eedayn karaa khalad waa geli karaa laakiin waxa ka horeeya xasaanadan iska qaado marka xildhibaanada waa joogaan waxaan qabaa adoon dictator igu degin inaan marka hore cod gelisid in xasaanada laga qaado ka bacdi maxkamadeeyo iyo in aad halka maxkamadda ku xidhid maya waaya kabta waa sameynaya laakiin haddii xildhibaanadu codka ku siiyaan dambigii mar walba waxa weeye dambigii xagee buu aadaya maya hadday codka ay siiyaan dambi ma jiro talasiin baa halkaa programkaaga talasiin baad u bedelanaysaa adoo xildhibaanada miyaa ka weynti may kama weyni xildhibaanada wax badan ku soo dacweeyaba waxayna soo dacweeyeen waa ayaga weeye aniga ma yihi ayagu ka yimid ayagaan ku kalsoonahay ayaga codka iigi waaya axmedna waa siinaynaa aad baa u mahadsantahay agaasime gudoomiyaha maxkamadda sare ee D5 ama TikTok sidoo kale waxaan salaamaya xildhibaanada sharafta leh ee karaamada leh ee afhayeenka aanu ahay anu horta Shibanow sidoo kale kabtanka fikradiisa kale aan qabaa nin xasaanad laba ahay 3 xasaanadood baa haya gudida anshaxa idaacadda horta waa kamid ahay xildhibaan firfircoonna waa kamid ahay oo leen aba oo xildhibaanada waa ku jira haddana afhayeenka beesha daarood baan ahay marka kal dacwadeedkaagu ma xuma sida kabtanku sheegay hase ahaatee niman xasaanad haya baan nahay shacabkaas xasaanada noo dhiibtay haddii ay waxa weeye intay xasaanada naga qaadaan in la maxkamadeeyo ogolaadaan diyaar baan nahay gariigil baan nahay haddii ay dhahaan war nimanka waa niman xasaanad leh ha laga laandheeriyo sidaa kabtanku kuu sheegay wixii talaa waxa weeye tusmaa dab idaacadayadii weeye anagu waa dhegaysanaa iyaguna waxbay naga dhegaystaan wax badan baa wax naga dhegaysanayeen soo caddo waan kaa dhex galo ha igu soo xoqon qof kasta sidiisa codka lagu qabanaya intaa haysaan hayaa niyow taa waa ogahay afhayeenkii waxaa tahay daarood laakiin codaynta gudida anshaxaan ku jira gudida anshax miyaa ku jirtaa kaas xilma ay sugu hortay aan ku warramay dee aan ku dhameey idaacadda ka hayaa labana daarood baa haya midna idaacadda haya aan ku dhameey kabtan inagu idaacaddu waa personal moogta shaqaalaha idaacadeed baa ka shaqaysay taa lama rabo anigu waxaan sheegay xilkan daaradu hayna sheegay afhayeen inaad tahay waa ku ogahay xildhibaan inaad tahayna waa ogahay aniguna Khalid bin Waliidkiina waa ahay xildhibaanna waa ka ahay meesha marka waxaan ka soo wadaa systemka codaynta dhinacaaga lagu codaynaya anna dhinacaaga lagu codaynaya igu soo lugdarsan may anigana waa lay codaynaya anna waa lagu codaynaya shacabku adiga markay ku dooranayeen anigana gaar bay u doorteen I know may kuma haysto waa laba kala ahayd marka shakhsi ayuub la dhahaataana shakhsi axan facdaanahay waxa daaradu hayso waxaan daaradu hayo hase ahaatee isku eedayn baa inagu timi isku eedayntu waa inaynu isku xukun marnay waaya iikaadiya marka labadiinaba iikaadiya waayahay xildhibaanada rabaa marka inaan la hadlo wayna ka soo wareegtay baashu idinku muud iska gala inta waxa weeye anaa codaynta qaadaya insha allahu tacaala dhinacayga u soo wareegtay dhinaca gudoomiyaha iyo agaasimaha u soo wareegtay waayahay horta labada nin aad soo eedayseen xildhibaanada sharafta leh aad soo eedayseen waa kabtan ayuub iyo axmed food cadde iyo ninka marxuumka majeerteen daaqadda waa ka saarnay sababtoo ah marxuum maxkamadnimo qabato waayahay kabtan ayuub iyo ninka la dhaho axmed food cadde halkaan ay fadhiyaan kabtanku waa kabtankii daarood waa Khalid bin Waliid waxa weeye waa xildhibaan waxa weeye halkaasu fadhiya xasaanado badan buu haystaa afhayeenka sidoo kale waa xildhibaan waana waxa weeye guddigii anshaxay raadiyuhu qayb ka yahay waayahay waxay dalbadeen marka ugu horreysa in waxa weeye xasaanadooda waxa weeye la mariyo cod la mariyo haddii kadib xasaanada laga qaado waa la maxkamadayn karaa marka insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa maadaama idinku aad dacwadda keenteen maxkamadda maadaama aad keenteen waxaan rajaynayaa xildhibaanadii inay cod isku filan ee isku difaacaan ee heli doonaan insha allahu tacaala si aan si toosa maxkamadda ugu gudubno aan maxkamad u saarno dembiga lagu soo ogeyna waxaa weeye magacii daarood inay maqaamka lahaa ee cisiga lahaa ee sharafta lahaa in ay hoos u dhigeen ay la galeen meel aan loo baahnayn maqaam aan loo baahnayn la istaageen waayahay codka waxa ugu horeeya kabtan ayuuban waxa way u qaadi doonaa insha allahu tacaala axmed agaasime halkan maan dhahaya intaadan codka bilaabin waayahay siidaa kabtan shacabweynaha waxaan leeyahay xildhibaanada waxaan u sheegayaa D5 ee meeshan ku jira
sunusuurkiina waa dhooban yihiin iga ilaaliso aad baan idin salaamayaa waa idinku kalsoona shuruushuurka waad ula gashay waxa weeye xilkii daarood ee weyraayo quruxda badnaay maya taa waa su'aalo laga weydiin doona waa ka jawaabi doonaa taas ka baraxi doonaa waa ka jawaabi doonaa waa dardaarmaya may waa dardaarma saasaa ka horeeya saa u qaadaya kadib adaan ku siinaya axmed may horta marka kelmadii qaadaya codkan ku siinaya hadda asaga oo bilaabaya kabtan waa kaa dhantahay Soomaaliya waxa weeye hadalkaaga waa dhamaysan mise waa kuu soo celiya waa iga dhan tahay waan ku kalsoonaa xildhibaanadayda iyo D5 iyo laandheerayaashan Khalid bin Waliid ku ahaa sii daacod waayahay codka waa sii deeraya waayahay xildhibaanada xasaanada rabta in kabtan Ayuub laga qaado waxay leeyihiin qosol xildhibaanada diidan kabtanka in xasaanada laga qaado oo la maxkamadeeyana waxay leeyihiin oohin haddii aad rabtid kabtanka Khalid bin Waliid in laga qaado xasaanada waa qosolka waa farxadda haddii aad rabtid ka xun tahay kabtanka in laga qaado xasaanada waa oohinta waa sii deeraya oohinta waa laga qaado qosolku waa laga qaado oohinta yaa laga qaadin wey qosolku waa laga qaado oohinta yaa laga qaadin wey qosolku waa laga qaado oohintana yaa laga qaadin wey qosolku waa laga qaado oohintuna yaa laga qaadin wey qosolku waa laga qaado oohintuna yaa laga qaadin wey الله خيرك دارو هالان ديريسان واي مود الحلبة صوبح وكجرا سوري واي قصلك waa laga qaado oo intana yaa laga qaadi buu qosolku waa laga qaado kabtanka oo intana yaa laga qaadin wey qosolku waa laga qaado kabtanka oo intana yaa laga qaadin wey qosolku waa laga qaado kabtanka oohintana yaa laga qaadin wey qosolku waa laga qaado kabtanka oohintana yaa laga qaadin wey waayahay waa gebagabo waayahay 840 xildhibaan oo cod baa haysataa oo tiri arkabtanka yaa laga qaadi xilka 300 wallahi waa xildhibaano badan 300 iyo abafna waxay leeyihiin kabtanka xilka ha laga qaado waayahay xildhibaan waa badbaaday adigu kabtan Ayuubow halkaas maxkamadii waxa weeye adigu oo fakatay laakiin talasiin baa ku siinayna hadii arrinka mar laba soo laabta si toos ah waxay la tahay maxkamadda waa shaleelaysaa insha Allah taala waayahay kabtan hadalkaaga hadaa ratid kelmad mahad celina waa jeedin kada waa mahad celinayaa si fiican baan mahad celinayaa dhamaan waxaan mahad celinayaa D5 waa adigu kalsoonahay awal baana codka waxaan u dhiibay oo halka xasaanadeeda u dhigay kalsooni aan ku qabo tolkay laandeernimo waan rajaynayaa afayeenkii dhamaana inay naga reebin